dowladda federaalka Soomaaliya waxay adkeynaysaa hirgelinta hannaan doorasho oo waafaqsan dastuurka dalka kana turjumayo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo ilaalinayso midnimada qaranka. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa saxaafadda waxa uu akhriyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala. Waaqday gogosha wada tashiga qaran bishii March sanadkii 2025 waxay dawladdu waday wada tashiyo joogto ah oo ay la lahayd dhammaan madaxdii hore ee dalka, bulshada rayidka ah, aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta kala duwan si ay u dhageysato talooyinkooda ku aadan dhismaha dawladnimo casri ah iyo dimuqraadiyeynta dalka, taas oo ka jawaabaysa himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa in arrimaha masiiriga ah ee dalka lagu xalliyo wada xaajood, wada tashi iyo is-afgarad ku dhisan dastuurka, sharciga iyo danaha guud ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. dowladdu waxay si buuxda u aqoonsan tahay doorka muhiimka ah ee ay leeyihiin dhammaan daneeyayaasha siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan marka laga arrinsanayo hannaanka doorashooyinka, dhismaha hay'adaha dawladeed iyo xasiloonida guud ee nidaamka federaalka ah. iyadoo laga jawaabayo baaqii ka soo baxay shirkii qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ee la baxay golaha mustaqbalku ay ku qabsadeen magaalada Kismaayo 18 ilaa 20 bishii December sanadkii 2025 dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay fidisay gogol wada xaajood dhab ah kana tarjumaysa niyad wanaag iyo mas'uuliyad qaran. gogoshaas oo si rasmi ah uga furantay madaxtooyada qaranka Villa Soomaaliya 18 bisha February 2026 iyadoo ujeedadu ahayd in laga gaaro is-afgarad ajandayaal hore looga heshiiyey. ka hor inta aan la gudagelin wada xaajoodyada waxaa kulamo dicoodyo looga heshiiyey in diiradda la saaro 3 qodob oo kala ah in la sameeyo guddi ka soo tala bixiya arrimaha doorashooyinka ee federaalka ah, in la qabto doorashooyinka dowlad goboleedyada, iyo in bisha Abriil isla sanadkan 26 la qabto kulanka labaad ee gogosha si loo sii ambaqaado hannaanka doorashooyinka federaalka ah. dowladda federaalka Soomaaliya waxay nasiib darro u aragtaa in maalintii koowaad ee wada xaajoodka ay qaar ka mid ah xubnaha golaha mustaqbalku si kadis ah u bedeleen ajandihii lagu heshiiyey iyaga oo ku soo daray qodobo cusub oo aan horay loogu heshiin, kuwaas oo aan lahayn sal dastuur iyo tixraac sharci. qodobadaas waxaa ka mid ah in golaha mustaqbalku ay talo toos ah ku yeeshaan hannaanka doorashooyinka ee dowlad goboleedyada kale, taas oo ah arrin si cad uga hor imaanaysa mabaadi'da ku xusan dastuurka dalka. dowladdu ayada oo ilaalinaysa ruuxda wada xaajoodka iyo hannaanka sharciyeed ee lagu heshiiyey waxay muujisay dulqaad, dabacsanaan iyo dadaal joogto ah oo lagu ilaalinayo ajandayaashii hore loogu heshiiyey si wada hadalladu ay u noqdaan kuwa miro dhal ah. waxaase nasiib darro ah in golaha mustaqbalku ay soo saareen bayaan baalmarsan habraacyadii, nuxurkii iyo ruuxdii wada xaajoodyada labada maalmood socday iyo kulamo duceedyadii gogol xaarka ahaa ee ka horreeyey, taas oo dhaawacaysa geedi socodka wada hadalka. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa in albaabada wada xaajoodka u furan yihiin cid kasta oo u diyaar ah wada hadal dhab ah iyada oo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka. ugu dambayn, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay adkeynaysaa in ay ka go'an tahay hirgelinta hannaan doorasho oo waafaqsan dastuurka dalka kana tarjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyadoo la ilaalinayo midnimada qaranka. dowladdu waxa ay sii wadi doontaa dadaalada ay ugu jirto dhismaha mustaqbal qaran oo midaysan, nabad ah, dimuqraadi ah, isla markaana ku dhisan dawladnimo waarta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.